وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال هذا أصحاب شرفت الله إنكم عادوا معصن هذه أبدا ما ستين فضلا على سؤال هذا إن شاء الله. سؤال هذا هلا شارك. السلام ورحمة الله. سؤال هذا أصحاب شرفت الله إنكم عادوا معصن هذه أبدا ما ستين على سؤال هذا إن شاء الله. برنامج كان لي شركة إنكم هذا ما صنع أصحاب شرفت له. برنامج عرفضون معهن أصحابي ما أنت فور أنا هاي وبرنامج كرباشة ما فهمتين عاوة ولا سكرباشة رنت إني شيء مركا وعرفضون معهن وبرنامج كرباشة برنامج كان وحو كسعودا dadka la leeyahay lama guursado waa laga tir badan yahay dadkaas uu ku socda asxaabay waad fahmin Soomaan marka waa sidaas ininku aad u maasan waxaan iga codsanayaa inaad share gareysaan ininku aad u maasan قرارك انت ما أذكره لكن فيرني ان شاء الله. واحد انكم هذا ما سنه اصحاب شرفت له عاوه وكلباش عراض ان شاء الله دواليدنا. اوكي هلا شرقري هلا شرقري inkastoo qoraalkiina aan arkaynin laakiin wax dhibaato ma lahan. اوكي كم waan share gareystay خلاص اوكي iga badan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب شرفت الله هل سود هذا مر والب سود هذا أصحاب شرفت الله waxaan nooga barateen barnaamijkeena calafdoon waan iska daynay maalmahan xoogaa waa ka yar dhacnay hadduu waalidna sababtoo mashquul iyo arrimo kale darteed marka insha Allah bacda Ramadaan baan ka dhigi doonaa hadduu waalidno laakiin caawa ama maanta barnaamijkan waxaan uga hadlaa waxay tahay dadka la yiraahdo laga tirbaday yahay ama dadka gabooyaha la isku yiraahdo ayaan la hadlayaa aniga runtan ii sheegay dadkaas ayaan la hadlayaa waxaan rabaa inaan ayaga runta u sheego runta ayaa ilaahay jecel qofka bini'aadamka runta inuu sheegaa wanaagsan waryaada war aawe dadka la leeyahay waa laga tiri badan yahay runta fiican war markay Soomaalidan in leeyihiin nimo guursano iyo
gabadheena saan ah iyo wiilkeena saan ah iyo adduunkeena saan ah sidaa miyaarteed inaan ku noolaatin war sidaani adduun laguma dhaqo maalin walba in la calaacalo maalin walba in la calaacalo maalin walba in meel la soo fadhiisto maalin walba in la yiraahdo aniga sidaan baa la yiri ani sidaan ani gabadha lii diiday ani wiila lii diiday ani aabahay waa la dilay ani eeydal waa la dilay sidaani xal ma soconayso runtan ii sheegay whatsappka laga soo wici karaa asxaabta sharafta leh meeshan whatsapp ku qoran whatsappka iga soo wici doontaa haduu marka ani waxa rabaa inaan ii sheego aniga Soomaalida kale wax igama gelin Soomaalida kale waxaan ka hadlayaa waa dadka isku sheegayaan in ay yihiin dad nasaba dadkaas aniga ma haysto aniga dadkaasi ismiga wax igama gelin aniga dadka aaminsan inay nasab yihiin wax igama gelin laakiin aniga waxaan la hadlayaa dadka aniga aan ka soo jeedo dadka aniga ma nin kala saaray ma dhibaan iyo tumaal iyo midge iyo waxaas ma kala saaray aniga kulligiin halaytiin laakiin muhiimadda waxa tahay ininka iskala saara ama iskala saarina sidaani xalli ma ahan war haddaad dibadda joogteen iyo haddaad dalka joogteenba waxaana leedihiin gabadheena saan baa loo yeelay gabar baana noo diiday wiilkeena waa la dilay hebel waa la dilay heblaayo waa la dilay war sidaani adduun laguma dhaqo war haddii aad rabtiin inaad sida dadkaasoo kale aad noqotiin Soomaalidan kale isku sheegaysa inay nasab yihiin haddaad rabtiin ina ayagoo kale aad noqotiin hal mid oo kaliya ku noqon kartiin midda kaliya aad ku noqon kartiin waxay tahay horta waa adiga inaad naftaada aamintaa waa inaad Soomaalnimadaada aamintaa waa inaad aamintaa qabiilka adiga Ilaahay oo ka dhilsi waa inaad aamintaa taas oo kaliya ayaa ugu gudbi kartaa dadkan isku sheegaya inay yihiin la dheerayaal maalin walba inaad idaacada soo fadhistiin maalin walba inaad meel walba soo fadhistiin cali caashin aad tiraadiyay alla baayay alla hogayay alla waalid dilay alla saambal yeelay alla war maxata war aniga bataatanba baxaan qabaaba Soomaalidan isku sheegaya inay laan dheer yihiin bataatanba inaan la isguursan oo naga dhaxayso calankaas iyo dalkaas oo kaliya gabar laba qof oo reerahaas in la isguursanaan qabaaba aniga guurka dhamaaba ka soo horjeedaaba guurkan la leeyahay waa la isguursadaa aaba ka soo horjeedaaba because waxaan aaminsanahay ani shakhsi ahaan maslax ahaan waxaan aaminsanahay dadkan isku sheegaya inay laan dheer yihiin inay nasab yihiin waxaan aaminsanahay hadii la aroosaba inay ka fiican yihiin dadka maanta oo kitaabada kala haystaan because maanta arinta dhacday waa qof waxaan macquul ahayn war wadaada ayaa loo tagay wadaadadii markii loo tago lagu leeyahay waa qalad gabadhaas isma geysina soofar nin dham oo wadaado kula kabar haye war miina damiir lahayn war inigaan la hadlay aniga waxaan la hadlayaa dadkan la leeyahay waa midgaha dadkan la leeyahay waa lama guursadaan dadkan la leeyahay waa laga tirbadaan la hadlay aniga dadkan kale Soomaalidan kale maba salaamu calaykum salaam kaasa naga dhaxsaba marka ilma adeeraalo dad aan iska dhigno war hadaa ma dhibaanta hadaa tumaalta hadaa muusata hadaa yibirta hadaa anaasta waxa soo dhan xagga reeraha kala seema laga yahay hadhiin ani waxaan ahay nin tumaal hadhiin ani waxaan ahay nin ma dhibaana hadhiin ani waxaan ahay war ayaga xaggooda halba ka taa midgaan oo kaliya ka taa runta ku sheegay aniga ما يفهمت بس ضد اسكدغا وركر اسكو قاده ور الهها نيغو دارشي ضد اسكدغا كور اسكو سو قاده ايمانكينا iyo dadnimadiina iyo reerkiina aamina war dadkan ha guursanina war kaalay dadkan sababta u guursanaysiin xataa dadkan sababta loo guursanayo horta maxay taas rabaa inaan in weydiyo waa dadkan dadka kale ka daba ordaay la bahdilaayo la jilaayo aniga ni qariid baa qaba aniga na qariid baa qaba war maxay faa'iido ee ku leedahay ishay ilaa waad guursatay maxaa mataada iyo taas yaa macaan labadan tan inaadeerta ah iyo naagtaas kale yaa macaan war waa naag laakiin sharaf ayaa lagu kala fiican yahay sharafta muhiima dadnimada muhiima ma fahanteen dadnimada muhiima sharafta muhiima war baktiga lama cuno nacladeen caladu dhashay xaaraan baa tihiin ma fahanteen dadka iska dhiciya ha guursanina ka carara maanta gabadh reeraha kala dee ku timaato u sheeg maxaa tiraahdaa naayaa isma guursano ma fahanteen Soomaalinimadaas calankaas naga dhaxayso ma fahanteen adigana u sheeg hadii wiil ku yimaado u sheeg maxaa tiraahdaa walaalo isma guursano ee Soomaalinimadaas islaamnimadaas hanugu ekaato maalin walba in idaacad la soo fadhisto aniga gabadheedu waa la dilay anisa war wadaadadii ayaga ka dhashay Soomaalidan wadaadada ka dhashay oo culumada ahay ayaaba kula isma geesin maxay taa marka war ani waxaan qabaa dadkan la leeyahay Soomaalidan oo la leeyahay
waa dadkan laga laanyaro isku sheegaan waxaan aaminsanahay ani gabadhan dhalay ma siisteen waxaan sii lahay yuhuudkan sii lahay aniga runtaa kuu sheegaya because qofka ku liiday sababta hoos ugu gelaysa maxay tahay war soomaali hore kuu sheegto soomaali waxay tiri qof wax ku siiyaa wax la siiyaa qof wax ku diidina waa loo diidaa war soomaali iska dhicin bay wax ku leedahay soomaali waxay wax ku leedahay inaad baawarkaaga aad la soo baxday war maxaad la cabsoonaysaa maxaad hoos isku dhigaysaa midgaan war alxamdulilah ilaah midgaan naga dhiga waan ku faraxsanahay midgaannimadayna waan ku faraxsanahay maxaad i dheer tahay wax ima dheerin gabadheeda kuma siinaayo runtaa kuu sheegaya gabadheeda kuma siinaayo qof walba oo soomaaliya gabadh aan dhalay oo qaryada ima siisteen aniga because waxaa wax la siistaa ninka markuu ilaahay iyo rasuulkiisa yaqaano dadaan ilaahay iyo rasuulkiisa aqoon ayaa maxay ku leeyihiin gabadheena ha noo soo fur gabadheena war gabar uur leh 9 bilooda sababta lagu soo furay maxay tahay war yurubta ku bahdilantiin war dibadda ku bahdilantiin war aakhirana naarta galaysin dadkan ma dhibaanka iyo waxa la hadlayaa tumaalada iyo dadkan leeyahay midgo inikaan ila hadlaya aakhirana sida adduunka ku tihiin aakhirana ku noqonaysin runtan ii sheegaya adduunkana saanaad gumeys ugu jiraysin aakhirana naartan حرام يا حراتول ورداد اسكديغا ورمين بربراتي برمبرماتي برمبرمياتي برمبر الى ان يقدر شيء ورقف wax ku diido qofka waa hus Allah ma fahantay war Soomaaliya waa gaajo adaa ka sharaf badan war intaas qurux leedahay iimaan leedahay xalaal lagu soo koriyo ma fahantay marka ina isliidiin maaha ani midda kali aan la yaabsana waxa tahay sababta reer kale loo guursanaya ani ba ka soo horjeedaa ani maslax ahaan guurka la isguursanaya ka taatan ba ka soo horjeedaa nefa ma ba isguursanaba taaganahay ani waxa aaminsanahay ismaba guursanaba ani waxa aaminsanahay wallahi wa billahi oo tala gabar ani aan dhalay nin kale hadii guursato ilaaha iga sareeyo noloshan ku gubaya nolosha because waaba qaladba ba fahantay war dad culimo ma la dadkan culimadooda iyo tuugooda waa isku mid marka sababa marka aleeda alxamdulilah qariib baan aroos alxamdulilah war reerka ku faan ilaaha madhiban ka dhiga ilaaha tumaal ka dhiga ilaaha muuse ka dhiga ilaaha jibir ka dhiga ku faan waxa taa ku faan dadnimada la imo war naag kama macaan nin kama macaan mifan ilaaha dad qurux badan iga dhiga ilaaha dad sharaf leh iga laakiin cilada jirta niyadaad ka dhimateen niyadaad ka dhimateen allah wallahi bilaa maanta daa awood lahaa lahay naag walba iyo nin walba oo qaryada oo qaban hada arki lahaa nolosha ku gubi lahaa xabada madaxna ugu dhufa lahaa xaraan war dad iska dhiga war maxaa tahay boqolkaas sano la leeyahay gabar tumaala lisaan wiil tumaala maxaa tahay isma guursan war guurka fakir guur muxuu ku yaaniga war aniga naag unbay tahay ma fahantay naag bay tahay guurka baa ka soo jeedaa aniga wax guur liiraa ma barooba أنا إن أدرت أوجده أو أنت صغرت لا أوجده هاي عروق روح بدن لسه كبدان كلا صومالي بحيها ثانية وحيها سمالة إسلام الله هي صومالي خلي نفته فهمتوا برتسن وقوته وح شكاسية وح جورة بطاطا بيالوسكوي مانبا رتاني شيء ورأنيجا ما أنت هدان أقول لها والله أو بالله أو طلعنا بيكو شيء حتى هدي عن مقلو حتى ويل مديوانا أما قبل ويل تمالا قبل كل شخص قارت سانكجر لها because ده إسجنا معهن كل سنة لو يصيا مياذا الضمير لهن مياذا الضد إهن مياذا ابن آدم إهن بصدق بوي حنوستا بصدق قول كسر حر لو مركب باش وأديك كسر جسنسا ورآوة ضدني مدينة ورآوة ضميركنا ورآوة بني آدم مدينة لا حول ولا قوة وكهذا سؤال أنا ودينا ما أنت هدوس إلهي قبلها قبلها الدنيا قروح بدن هدوس إلهي نصين أنت أهلهم لو كان شيء فلين على قبر قرية الربا ما نيلن الحمد لله والإيمان والقبيل كوفان وردني ماذا كوفان والصومالي ماذا كوفان وأنا محمد أمسنا ضد كان كالصومالي ده هاف إنا الإسلام كان هنا because إسلام كوحو شيء جاء قف والبقى الكتاب إنا سكور سكرتين لكن نقطة هاي قبل إذا مو جور سكرتين سببتها مركا إسلام ما بتهم به because إسجا إسلام ما هذا إسلام كصحة مرول بأذا كفي عن مرول بأذا كفي عن because قف معناها
oo ku yiri gabadhayda iyo wiilkayga maba guursatid war fiiri ilaahan kugu dhaarshay quruxdaas leedahay dadkaas leedahay aqoontaas leedahay gabdhaha quruxda badan ka dhashay wiilasha quruxda maxaa bal isku guursanaba findi cindi gel aan waxaan aaminsanahay guurka war yaa markaad qof wax ku diido wax buu ku sheegay moogta qofku wax ku diido wax buu ku sheegay war guurkan fakin aniga Soomaali Maxamed Sharaf Ciise Karaama ahlan wa sahlan dad islaam ma nahayn waliba islaam haaf aslaanahan islaam sax ma islaamkan waa haaf bas ma fahanteen islaamkan waa haaf calankaas buluuga iyo dhulkaas bas naga wada dhaxayso iyo afkaas bas oo aan ku wada hadlayno xaqiiqatan ma fahanteen marka aniga dadkaygan la hadlaya war ilaahan dad iska dhiga war kaca war bisada miyaa niga sharaf badan war bisada qol ku soo xiro hadaa kirbaashid way xanaaqaysaa banaankaas tagaysaa oo ku soo jeesanaysaa war 100 sano loo kirbaashay hay war dalkii waa ku dhibaataysantaa Yurub waa ku dhibaataysantaa Mareykan waa ku dhibaataysantaa aakhirana naarta gelaysaa aniga waxaan sheegayaa all gabooy midgaan alxamdulillah kulli waxaas oo isku soo waxaan la guursan aniga mani kala saaray ma dhibaan tumaal heblaay only one ma fahad aniga maanta ninka ma dhibaanka iyo ninka tumaalka hal ما فهمت ولا بدي ذا ما فهمت نيكا موساها يا نيكا يبركا هالكي قعن ما فهمت مركا هال قعن أن نقرن أن مدونه شال محاسكو قرسن وحتى لبعض الصومالي إنه كتمي أوكي شال سيدان اسكو مدونه أو اسكو رعنا ما أنت اسكو رعنا صومالنا أن كتشنا ما فهمت وحتى شو كاسك هلا جوجين تاجن عنيا قبل صومالي مثلا ناياتان ليه ما فهمت يا تان ليه هدي ترى ريركي waa soo dhaweynaya hadii tiraado reer kale aan walaal xaga naga joogan leh ruta ku sheegaya marka ruta la isku sheego Soomaaliya aniga gambasho dhama hay ugu iimaanina gambasho dhama yaa lagu iimaan halo assalaamu alaykum salaam wa rahmatullah barnaamijka ma kaliya baad dadinay misawa barnaamijka walaal aniga wado hadii aad la socotana wixii fikirkaaga waad ka dhiiba kartaa aad barta ugu maadsantahay arimaan xasaasiga aad ka hadlayso ma garad maasan waxaan kugu darsanayaa arrin baan kugu darsanayaa arrintan kugu darsanayaa waxay tahay horta beelahan isuwanta ah ee la isku magacaabo hadda imika waxay keeneen inay yiraahdaan waanu kala baxnayba ku soo inay waxay sheegatay qabiil hawiyaanu naxbay yiraahdeen hadda waa sax laakiin muhiimad inaan ka hadlo muhiimadda barnaamijka waxay tahay walaal dadkan sababta aniga guurkan ka soo horjeeda maadaama arintan ay nagu soo badmaatay oo xitaa wadaadadii horta adigu yaa tahay waa ku dhaafay horta gala anigu waxaan ahay gabar kula mid ah maya kula mid ah lama rabo ma reeraha kala tahay mise reerkay aniga aan ka hadlay aan ka dhashay miyata labada kala saar waa inta aad ka hadlayso baa ka mid ah okay waa seeta ma Soomaalida mise reerkay aniga aan ka soo jeedo aniga Soomaali may reerka aad ka soo jeedo Soomaaliya okay waa seeta marka aniga muhiimadeeda waxay tahay aniga maadaama arintan 100 sano ay socoto 100 sano ay xitaa wadaadadii ay dhaheen war isma guursano ani marka waxaan qabaa dadkan oo ani aan ka soo jeedo ani dadka kale wax igama gelin dadkan kale oo qaryada la yiraahdo ama reeraha kale wax igama gelin laakiin ani dadkaygan la hadlaya war dad iska dhigo dadka ha guursanina faraha ka qaada isku kalsoono waxa adiga in adeerta guurso gabar kale guurso laakiin gabar Soomaaliyeed dhama ha guursan gabadha Soomaaliyeedna yeesan kala guursan markaad Soomaalidu markaad wax u diidid ay ogaanaya qiimahaaga iyo sharaftaada ها marka anigu waxaan rabaa kaliya inaan arintan ka hadlo waxay tahay in ayaga dad iska dhigaan guurkan iyo waxaan ay joojiyaan bataatan bal la joojiyaan qaba fikirkaas ma igu raacsan tahay ha ama maya ayaad wallahi si fiican baan kugu raacsanahay waayo waxa soo haystaa ninka raggi haduu guursado gabadha shisheeyaha inuu baalal aanu hore u lahayn inuu yeelanayo uu ku duulayo صح laakiin taas
taasi ma noqonayso waxa weeyaan ilaahay baa dadka dhidig iyo lab u kala sameeya ma garata waana la isku dheeli tiray ilaahay baa isku keen dheeli tiray iyagana ilaahay baa u sameeyey dumarkoodii iyo raggoodii innagana ilaahay baa dumar iyo rag bay inoo sameeyey inaga dhaliyey de marka anaku baa isku filane anaka aan isguursano dhegayso dadku isku wada mid maaha iskuna ray maaha anu waxaan ku qanacsanahay ninkayna adeerkaya ee ilaahayta baan ku qanacsanahay guurkiisa saxiix laakiin nin bin aadmi oo aan aniga i huray kuma qanacsan taas ana muhiima saxiix hawaawiyayaan hawaawi way ku jiraan hawaawi mideeda ka in adeer mideeda ka Soomaalidu way ma mahada waxa taqaanta guurso waxa taqaanta lagu dhalay ma fahamtay ha marka aniga bataata waxaan ka soo jeedaa guurkan war ilma adeeraalo dhulkaas Soomaaliyeed iyo afkan Soomaaliyeed iyo caalankan iyo diinto haafa naga dhaxeeysan taagan aniga runta ku sheegaya ما في صوت الدين تكون مدخمان أنا كدين تكون دخل ها مركز آد بعض ما ستين هذا القاعد وقت جاء يصير شرفت الله يكرتد الله أدي يقصوا قشة وفكر كذي بت وكاجا ما هذا علنا هنا هذا القاعد ما تسند آد بعض ما ستهاي قبل أسوح هاد قبل إن هذرتي آد بعض ما ستهاي وحلو بهني هاي إن أذكر اسكو سوقاتين إن أذكر اسكو سوقاتين هم جاء إن أذكر وخاتم لو بهني ضعيف لماذا نجد داية والله ضعيف لماذا نجد داية أو إله نقول دارش برا ما نيجي شرف بدن برا ما نيجي شرف بدن ولا رياله ما فهمت وردد أنسك دقنو وركر أنسك سوقات ما أنت سومالي ما أنت سومالي ده ما أنت ورنيك عدانك أو جالك أو استاك كجادي والجو فرح سنة أديكو قروح بدن شرف له حلال عندنا محلو بيه إيه مجلس because محاوي والدته because جالك والين لانديرا ما فهمت والين لانديرا إنجليش وقال لا يقول كسان بضع محو كله حتى نكتة مذمور وتاجين نه مركز سومالي سيدا وحواي وإن هذا أنت اللي سوق من وين أكون جنتا أنت اللي سوق من وين أكون جنتا ذيك أترى هذا أديو ياته أنا وحنا هاي ونين تمارة نين مديبانة نين موسى نين هولا نين جبرة أيام هاي أديو ياته قبل إذا ما بجسد أمسنا باني ما بجسد أمسنا نيجا نعلى الدين دشوسه كرسكو هذا حولي دجي ما أنا من ديجا نوك عنسين ورفيري قف الب وإيمانية بحكولية تتكلم التلفزيون قف كان واحد لدي هلو مصلح والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصلح وأرين الوبا هي أياد ما أنت كذا واجسة. أرين تاسنا واحد في عن ما أنت كلي أنا ذم كوبين أدهوري ودد. ودد كان أي إسكوكل صونودان أو قبل دستان أو ضد كدوان نقدان ودد كالصومالي وقونك والله العظيم. صح. ayaga ayaa la soo hoos fadhiisanaya hadhowto oo dha ay Soomaali dhihi doontaan noo arrimiye ma baan sax waa dad wanaagsan wax wada cun leh heliyo hoobale aan dhiig daadin sax dad aad wanaagsan ma baan ma sanid marka abay adoo raali ah marka mareeraha kala taa misreerka aniga aan ka soo jeedo ma aan reeraha kala okay marka adiga diyaar waxaad yani adiga hadda waxa kula wanaagsan in la isguursan oo nin walba meesha soo joogo صحيح ما شاء الله aad baad u maasantaa baay macanto نعم sida waarta ما شاء الله صحيح ما شاء الله ما شاء الله صح ما شاء الله ها مورتا ما شاء الله أباي أد ما ستها أد ما ستها ولا شيء فكر كاجو وناكسن يمسك هذا السليم كا وكاجا ما هذا علنا يا أد ما ستها قبل أد ما ستها وقبل الصوماليات وريرها كلا فكر كذا وعدي ما شاء الله بناء قفك بناء آدم كوحة وناكسن رد إنه كهلا والرد إلهك وكتشع ما يفهمني والقفك الديدة ما حد وصل وجلسه قف أنا وحن أركي إنده يكو أركي أو غير معقولة ما فهمت ورد سوق هذا والإله نجد السيء هذا أنا قلنا تمالنا الحمد لله اللهم لك الحمد تمال ألاف الحمد لله أنت جنا أوكي أديكو كفان وحاتها
war fiiri nasabnimadu waxay tahay nasabnimadu waxay tahay waa qofka wanaagsan oo diinta iyo meel walba ilaahay u dhow qofkaasaa nasaba waxaan kala joojiya ma fahanteen anaka haddaynu ani ma kala saarayo waxaa aniga dadka kala saarayo xagga ii dhiga aniga bataatanba ma aaminsani ma dhibaan war ninka ma dhibaanka ninka tumaalka ninka yibirka waxaasoo dhan soomaaliya xaggooda midgaan oo keliya ka tihin aniga maanta nin tumalaya ninka ma dhibaanka ah hadduu gabar doonto ani haddaan doonto sem maxaa leeyahay midgaana tihin ninima guursado marka sabab anaka marka dadkan kale qaryadan hoos uga gelina ii sheega war ilaaha dad naga dhigay qurux badan sharaf badan karaamo badan iimaan leh wax walba leh bas intaan keliya aan ku xunaa waxay tahay daciifnimo qabiil heblaaye midgaan baa la yidhi midgaan baa la yidhi gabadheedaa la dilay war hadda imise qof oo maanta soomaaliya ku dhibaataysan imise qof ani dadka soomaaliya waxaan aaminsanahyba kuwaas waxaa la dhihi karaa duruuf iyo dan iyo balaayo hale laakiin adoo qurbaha joogtid sidee naag lagu diidi karaa sidee adiga gabar lagugu diidi karaa adoo qurbaha joogtid waa qalad bataatan ma fahante almafruud maxay ahayd soomaaliya ha lagu dhibaatee laakiin yurub waa inaad kor u kaadisaa kor waa inaa u kaadisaa aad tiraada adigu yaa tahay ma fahante meeshii raba adigiiba inaad kor u kaadisid adigaa hoos u kaadinaysid kan dalka joogay kan isku mid aan inu isticmaalaya xaaraan ya xaaraantu dhasho dad iska dhiga dhiig isku yeela ilaaha dad niga dhigay ma fahante wax walba noqo laakiin ani waxaan kuu sheegaya ani waa ogahay dad badana meesha iga daawanaya ma dhibaan tumaal war seemaan nahan anaka seemaan nahan ma fahante seemaan nahan ma dhibaan tumaal muuse hebel qaryadka xaggiisa halan ka nahan danteenu waa hal waa inaan hal aan noqonaa sida ayaga hal u noqdeen waryaa fiiri ninka soomaalidaan kuu sheegaya soomaalidu waxaa waaye waa maxaa la yidhahdaa waa hawiye waa daarood waa raxween waa jareer waa waxaasoo dhan hal qabiil maaha waa qabiil isku tegay xaggoodana halaa ka tahay ma fahante war ninka raxweenka wuxuu kuleeyahy kuma guursanaa midgaan baa tahay ninka isaaqa sidoo kale ninka daaroodka sidoo kale digir iyo malafla sidoo kale jareer weyna sidoo kale marka sabab aad u fikri weysa maxay tahay sababta u fikri weysa maxay tahay waa inaad fikirtaa sababay soomaalidaas dhan kaa ka soo horjeesteen naaladin dhashoosa maalin walba meeshaana calacal nagu soo fadhisiin war dhimo halo soo dhaweynaya saaxib calaykum assalam waraxmatullah wallahi maasha allah barnaamijka mala socotaa aad baad u mahadsan tahay reerkaaga okay marka fikirka sidee kula tahay fikirkan meeshan iyo fikirkaa ka dhiiba arrintaan aad bay u fiican tahay qofka hadduu ku yeesanina yeste oo qasab weeye ma garat arrintaan meel fiican baa ka taagnaa ninkaan ku rabin la iskuma nabo waa sidaa walaal qaali maanta inaan qof wadaad oo weyn u tagtid oo lagu yidhaahdo waryaa isma geesiine ord magaalada gal in la yidhahdo oo gabadha soo celi la yidhahdo soo khalad maana alle waa ku gaya ku dhaho waa khalad ma fahante marka bataatanba ani waxaan ka soo horjeedaaba war soomaaliyey dhulkaas iyo afka soomaaliga iyo diintu haafa hanaga dhexayso waa intaasoo keliya waa intaasoo keliya aan isnabadgelino marka walaalkayga aad baad u mahadsan tahay fikirkaaga wanaagsan waa kaaga mahad celinaya aad baad u mahadsan tahay marka walaalayaalo kor aan isku qaadno ilaahan igu dhaarsi korna aan isku qaadno war soomaaliya waana jecel yihiin laakiin adigaa lagaa rabaa inaad kor isku soo qaatid adigaa lagaa rabaa inaad boorka iska jaftid adigaa lagaa rabaa inaad isqiimaysid war qofka bini aadanka hadduusan isaga isqiimin qof bini aadan u qiimeynayo male adiga naftaada haddaadan sharaf aad isku yeelin qof bini aadan sharaf ku yeelaysa male ma ifad war qofka aalkulustaha ah iyo qofka kale dantiisa yaqaano oo ilaahay ku xiran bulshada xaggooda isku mid maaha anakan waxaynu nahay sidaas oo kale runtaa kuu sheegaya qofka markuu alkulusta yahay dhibaato badan yahay qamri badan yahay dagaal badan yahay ummadda way nacaysaa maxaa leeyahay waxaan oo dulliga naga daa laakiin qofka markuu sharaf leeyahay ciise leeyahay hamigiisa uu kor jiro waa mar walba inuu hamigaa kor jiraa hamigaaga markuu kor jiro waa wax walba waad isticmaali kartaa halo وعليكم السلام ورحمة الله والله لو كسر بيني وما سنتهي يعني برنامج لا بس يعني horta weligay maanta ka hor meel aniga oo life weli ma wacnin mahadsanid awada ku soo waca
أولا قصة وعي يعني هرت أرن جرت وعي جاهل نمو ودتك إن الصومال كنت جرت وحنو جيدا ومجرى صح يعني دتك دينت حقي دينت حقي إذا يسوي سكيس المرات على أساس سيجرون سيدر قفك اللان ديرها قفك النار كبت بعد وراي عفسيس كله وهذا قفك سلام نعم تاسع بين هنا أن قرأت دتك ما وذا يغنان إن يعني الله أنك تجي قبائله كين نقول في عنا وممكن نقول عبسة بدن وما قرأ صح أن هويوا دارو واحد من جيران سومال وقف كقولين هو يعني ما أنت أن هاي هاس كلام بريرة حنقلا هاي سومال ده مرك قبل كاس أو سومال واجية أنا واجي سو حنا لو واجور سكرتا أنا واجور سكرتا سوا أنا يعني دينتي أساس ما قرأ وأنا ما دين اللي قبل هبلاي وطماط وصومال واجيسا قبل كساعات سومال ودين ودد ودقن أسل فرع وأقان واجيسا ما قرأ صح marka niyo horta ana markaan geeska dhinaca kale marka fiiro angalka ka fiiro oo tiri aanan ku isku tawaashay isku tashano aan yani horta sax waa de sax sida ininka u tashateen fiir walaal sida ininka u tashateen waa anaka inaa u tashana maanta fiir walaalkayga maanta Soomaaliya si hadda sheegay waa 4.5 okay kama soo qaadba 5 ka u tashteen 5 kan hadda u tashana ka war oo yani adinku istawri ha macna dadkan fiir dadkan hadda lagu leeyahay ma la guursado waa dad waa todoba qabiil ma ogtahay oo nin walba meel ka yimid okay ayadoo sidaas ay tahay dadkan kale hawiye isaaq dir maxaa lahaa digri malifle waxa hawiye waa tashta shamahan maanta aniga tomaala nin ma dhiwaana mid hawla mid muusa mid yibira mid hawla kulli anaka xaqeena ani haddaan ma tomaalaan ahay ma dhibaanka asaasa ma soconayso ayaga xaqooda halaa ka tahay ما فهمت ها اسكلا سارنا maslaxo abo weeyaan dadka fiican iyo dadka xun yani dadka fiican badan laakiin dadka xun ay macnaha hadda dhahay gabar saasa otomaan waageeya waa gursa kara gabdhi waa gursa karta dad dhahay oo fikrad in jiraan waa amsa laakiin marka ankalkaas kale laga fiiriday oo taada tiraan inaader guurka fiiri inaader qof walba fiiri inaader midaan ku sheegaya guurka qof walba wuu rabaa qof walba oo naftiisa oo macnaha naftiisa qof kale uu rabo wuu rabaa ma ogtahay laakiin meeshaan waxaa jiro wax la yiraahdo dhaqan oo Soomaalidan oo reeraha kale ay barteen ma ogtahay war nin istaaga ka kaadiya gabar la siin maya nin istaaga ka kaadiya gabar la siin mid aan diin lahayn gabar la siinaya ma fahantay marka adigoo Soomaaliland dheeraa sharaf la ciise loo shaqaysto xalaal oo xalaal quudata sidee marka dad hoosta ugu gali kartaa marka taas marka inaad gees u baxda aan halkaas joogto Soomaaliya ana isguursaay ana hooshida wadanaay saasa waa ana sawir saanta wallahi sidii loo qir niyo waa sax aad bad ma sita walaalkayga wad ma sita aad ba kaaga malcina waqtigaaga khaligaad siisay hay aad buu ma sayahay ninkan Soomaaliyeed walaalkayga aad buu ma sayay marka aniga waxaan rabaa kaliya wax kale ma raba aan isku tashan war reeraha waa tashteen aniga fiiri bataatan ba iga aniga ma dhibaana ahay Muuse ahay waxaas war anaka hal aan noqono todoba qabiil aan ahana hal aan noqono meel aan ka soo jeesano ma fahanti war dalka anaku noo baahan yahay dalka Soomaaliya lagu leeyahay anaku noo baahan war shaleeto 20 sano ayaa wadanka maamulayna awoodayna ku mulmay aqligeena ku mulmay wax walbaan qabanayna maanta markii hal qof oo gabooyo laga waay waa kana Soomaalida saas isku bar saas 30 sano islaynaysa ma fahanti war anaka waxaanu nahay waa dad Ilaahay heybad risiyo sharaf risiyo wax walba risiyo war dadka anakeena rabaan dalka anakeena rabaan kor aan isku kacno dadkeena aan ku faano dalkeena aan ku faano qabiilkeena aan ku faano qabiilku ceeb ma aha tumaal love you I love you tumaal ceeb ma aha laakiin waxa ceeba in qabyaalada lagu dhaqmo aad tiraahdo anaa landheera taas ceeba war alxamdulillah tumaalka Ilaahay naga dhigay madhimaan Ilaahay naga dhigay midgaan Allah naga dhigay ku faano waxa tiin halo waqso dhaweynaya gabar Soomaaliyeed salaamay marka hore waa si fiican horta barnaamijkan aad wado aad wax fiican bad ka hadashay run ahaantii waxaan ku walaalo waxa weeyaan run ahaantii dadka xanuunsanaya ee siga ayaa ugu badan ma garatay waana arrin fiican qofka haddii la yaso inuu isagu kor isku qaado leena qofka isagu baa iska dhiga wuxuu yahay
ma garatay wallahi anigu indhahay waxaan usoo jeeday oday wadaad isku sheegaya oo halkana la joogo oo inantiisi nin saasa soo doonay oo kuyidhi aan guursado oo kuyidhi no midkaan baa tahay ku dhaqaajiyey gabal afmaadna 2 bilood kadibna waxaa guursaday Jamaican af qarmuun oo disgusting ah marka innagaa siisayna haddii dadkii la aaminsanana inaan kor isku qaadnaa fiican wallahi walaal maasha allah aad baad maasantaa baa macanta cilada maya aniga bataatanba maxaan qabaaba aniga reeraha kale soomaalida kale waxba igama gelma aniga dadkayga oo keliya inay dad iska dhigaan ismuujiyaan war gabar kama fiicno gabar Soomaaliyada tahay ani wiil Soomaaliyada ahay ma fahantay sharaf ciisa laakiin meesha waxa jiro dhaqan iyaga ee dhigteen moogta okay alxamdulillah ilaahay anaka gabdhalaan nagama dhigin gabdhalaan ilaahay nagama dhigin Soomaan gabdha waan hasana okay 7 qabiilaan ahaan 7 qabiilaan 7 waa isguursan karna awal baa isguursan jirnay haddana waa inaan isguursanaa waa inaan isku dumnaa mideeda kale waxaa rabaa in qabiilka adiga aad tahay inaad ku fahamtid war ceeb maaha haddaa midgaan haddaa ta ku faham ما فهمت متجان ما كيلو الحمد لله أنا هذا كله أنا متجان أنا كله عب ما هم متجان ماذا because أنا وحنا هاي ننتو ماله أوكي لكن أذيك وحات المتجان باتا مركا وإنا معناها وهذا وإنا كويا because سومالي ده واحد كحنا قضي وكوجو ذا المقطع ما ف أنا أقول لك الحمد لله أنا وحنا هاي وكليان أهانا لكن واحد هذه أهن كمان يكره وحنا أنا هني كمان يكره والحمد لله أنا هيك كسان كل شيء وكسا هذا هو بس of course qof wuxuu yahay ku faana fiican inagu waan siiyay anaga baatiyay absolutely maxaa wad ma hasantay aad baad ma santa sharafay ma sanid aad bay ma santa gabadha Soomaali war umadii saasino jeceliye war dad iska dhiga war kor isku soo qaada ilaahay nagu dhaarshay iimaan isgaliya war iimaan isgaliya war fiir daciifnimada iska daa fiir hadda gabadha waxa ku leedahay nin wadaada ay ku tirfiir ayaa gabar laga soo doontay uu yiri midgaan baata oo Jamaican ku daray ay waxaas waxa u sababa gabadhaada maraba aniga midgaan ma ahay inta cararaysa musqilasa aakhirana naarta gelisa ilaahay maanta ilaahay muxuu awood iyo wallahi oo billahi oo tala qof walba oo reerka isqariya ina hatta sida maxaa ilaaha tanaran isu bilaa waan ugu gurlaa inta fiican oo aniga kale oo ku faanayso kaliya ayaa meel soo saraa inta kale isqarnaysan tanarkaas gelilahay naagti iyo ninkii aan ku arkana qariyada iyagoo shukaansanay xitaa shukaansi rubadaasan ka jar lahay war imisa gumeys war dalki dibadda meel walba gumeysa ku jirteen hay meel walba war gumeysiga maxaan dilay war miina dimiir lahayn war qofka bini aadanka dhiig buu leeyahay ani maxaa iga hadsinay aniga gabar liima diidin gabar ma doonan wax ma suubin laakiin dadkayga oo dhibaataysan ma arki kara aniga xaqiiqatan ma fahamtay marka waa inaad kor isku soo qaataan waa inaad is aamintaan na gabadhaas alla hadlaya haddaad tahay madhimaan iyo tumaal iyo wax walba ina adeerka guurso haddaan leh in adeerta guurso adigana in adeerta guurso Soomaalidan kala is guursadaan bataata masaas ku dhamaad filinka nin walba isku tashay Soomaaliya aan isku tashano hal inta hadda la qaban caafiyan leh ma fahamtay inta hadda la qabo caafiyan leh inta wax dhaleen caafiyan leh laakiin hadda kadib hala tashto guurka bataata ma hala joojiyo hadda kadib guurka hala joojiyo ليلى إن هذا روك سلامي ليلى أحمد أين هذا روك سلامي جورك ببتاتا محل جوجو ما فهم إن أدرت جورسو إن أدرك جورسو إن هبتك جورسو إن بس والحتى هدا ويسد قبل إن أدرت إن أبتدا إن إددا قبيل كاجا هدا ويسد وروحت جورسو تام قرنسا هندي جورسو عرب جورسو ما فهم أستراليان جورسو أمريكان جورسو دت كاسا كاجا شرب بدن ما فهم دت كاسا كاجا شرب بدن أنت صومالي حن oo kuliyada ay hoosta ka geliyeed na quruxdaas baa leedahay maxaa nin qariyada ka doonaysaa quruxdaas leedahay maxaa nin qariyada ka doonaysaa waxa hadda adiga aad ul aris in adeerka u baahan waxa oo qariyadka loo war in adeerka haduu been badan yahay iyo haduu run badan yahay in adeerkaas war qariyada in kan xun iyo kan wanaagba iyaga bas un baa guursanay adiga kaaga wanaagsan iyo kaaga xunba adiga oo kaliya si انت قرد اصيلها ان اديركا سي الكولستها نوشا كدعي سي لبا عروه كا دلay taasa
تاسا شرفه انت نين قريده ادسيلدا عرو ka dhan lahay oo ku bahdili lahay waxa fiican walaalkaaga alkulistaa nolosha ka dhaca inaan soo qabto jaftiftid aad tiraaniyo inta qarida si lahay waxaan ku raaxayso taasa ku sharaf badan kaasa ku karaama badan runtaan ku sheegaya siiba gabdhahan la hadlay aniga siiba gabdhahan la hadlay ragga ma guursadaan ba laakiin gabdhahan la hadlay aniga mani kala saara mardhimaan iyo tumaal iyo muuse iyo heblaaye mani kala saara only one anana ma fahante mardhimaan tumaal muuse waxaasoo dhan halanana ma fahante maanta nin qaridka agtiisa hala ka tahay haddaa mardhimaan tahay iyo haddaa war kulli waxay ku yaqaan midgaani ku yaqaanaan maanta haddaan aniga nin tumaal aan ahay habe wuxuu ku leeyahay waa midgaankii mardhimaanka baxay aniga nin hawiya oo saan ah waxaa leeyahay waa midgaankii okay marka maxaa fiican inaan sharaf isku yeelno waxaa fiican inaan karaamo isku yeelno waxaa fiican hamiga adiga aleeda inaan kor u qaadid war markii lagu leeyahay nolosha xun dhimashaa dhaanta waa waxyaalaan oo kale war wallaahi billaahi tallaahina bay ku sheeg haddii dunida maanta aniga naag la-aan ee dunida jireed gabar soomaaliyeed oo reeraha kale ma guursadeen runtaan ii sheegay ma guursadeen nolosha xun dhimashaa dhaanta ma fahante runtaan kuu sheegaya aniga markii ani li rabo oo dadkayga la rabo waa okay laakiin meel laga rabin ha ku dadegin iyagaba ma jecla nolol xun ma jecla sabab adi marka ku raasanaysaa nolosha xun sababa ku raasanaysaa ii sheeg kor isku soo qaad xoolo dhalay kor isku soo qaad halo fiican saaxib alxamdulilah ليلو إن هذا ماشي على اسمه سوق وصاب يلا هاي وصاب كاسي كسوب إن شاء الله وصاب ماشي بقولنا. وراديق وسلام ديق نيك ديانا كوها وريا. يا صاحب. ديق وسلام نيك ديانا كوها. أوكي وصلوا برامج مرة ساعة صاحب. مرة لكن ماشي كارك. أوكي وحي فكرة ما كان يبني صاحب. ثم ديونا كبدي ما كان هذا قبانا. أوكي ليفك مرة كبرهم سوق بنا ولا الكيجا. هاي والله هذا ما سته. ليلى إن هذا رجع لسما سوق قبته ووقتها بالك ودي ذي سوق بتانك وصاب ماشي كخورن إن هذا رجع وصاب كاسة يقصو بيعك إن شاء الله مركا ولا ليال وحكلا أنا مرة أنت كلي أروح حتى ور سومالي ذا اسكدعني وحكوا هذا ما أنت أنا نمد هاي دجال أنقلنا بس إن ورجورك بس على الجوجية جورك كلها جوجية كورك اسك جوجينا gabaray waad maqlaysaa hadda anaa kula hadlaya inta gabooyo inta alla guursan inta ka hadlayaan ka daawanayaan fiira war haddii wiil qarida u sheeg isma guursano dheh adigana sidoo kale sidaas nabadaa lagu kala helaya xal baa la helaya awooddaada la ogaanaya ma fahamtid marka aad baad u maasantihiin ilma adeeryaalow kolley aniga waxaan jeclaha oo keliya nolosha in lagu raaxaysto nolosha in lagu raaxaystaan jecla war aniga maanta ma jeclo gumeysi isaga soo ayaga se u nicbiyan gumeysigaan u nibca ma fahamtid iyaga se u nicbiyan u nibca war kor isku soo qaad war aniga 30 jiraan weliga ma arkin xumaan weliga ma arkin balaayo intaasna reerkayga ku faanaya weli gabaran ani aan shukaansaday ima dhihin niyo midgaan baa lima dhin aniga why ininka nilileeya guur ma timid walaalay aniga ninkaas ahay adiga saas taa isma guursan هذا هو خلاص واسكو دماته ان هذيركيga هذا واسكو دماته لكن wixii Soomaalnima walaaltinimo ahlan wasahlan laakiin muhiimadu waxa taa reerkaaga adiga aad ku fan waxa taa ku fan xabadka garaac ayaga buu xabadka garaacda war maanta Yurba joogtaa waa lagu iimaanaya waxa lagu leeyahay walaalo waxaan maqlay inaan gabooyo ataa qabiilkaaga ma ii sheeg kartaa okay ma xuma waa u sheegtay okay marka qofkaas ani biri ugu cay karaa sheeg ساسا قبل يقول ديدي كرا ساسا ويلكي يقول ديدي كرا قبل سا نو مس عنسا هميجا كروخات تدني ما هذا كروخات ور أدونك والله لمنايا لكن شرف الله أنت أدون كان والله لمنايا مرتل شرف تدانس كدقنا الماذا يروك عليه تدانس كدقنا أدب ما ستهين كل أنا وحن شعله هاي دتك إني ضد نقدان awoodooda la soo baxan dadnimadooda la soo baxan shaxshaxdooda la soo baxan marka please waan barya please guurka hala joojiyo please qof walba reerkiisa guursada aad baan salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh guur kolkaana fiirna insha allah kolkaana soo gala kolkaana ugu dambeeya
halo waa soo dhaweynaya walaalkayga barnaamijka mala socto walaal wala socdaa brother wixii fikirkaaga waa ka dhiiban kartaa walaalkayga brother horta waxaa sheegayso adab laakiinse waxaa loo baahan horta marka hore qofka kalsooni inuu yeesho hada baraarujina wada laakiin waxaa loo baahan team oo kale maqlaysaa si wanaagsan walaal khali leefkan iska fogay adoo raali aad si fiican maqashaa ha walaal waan ku maqlaa maasantani horta baraarujinta wada waa fiican tahay waxaan late time waayo laakiin inkasta wax kasta dabaqabad ay leeyihiin waa saa u sheegtay ma fahantay waa in qofka isaga ismuujiyaa inuu qof muuqdo iska dhigaa dan marka dadka agtiisa markaasaa ka muuqanaysa laakiin haddaa ismuujin aad dhuumatid dadka agtiisa markaas waa ka liidanaysa marka dadka waxaan leeyahay hala ismuujiyo qof ka fiican ma jire maasha allah aad baad marka adiga waxaan jeclahay kolley reeraha kala taa malaynaa soomaalida kale reeraha kala ahay laakiin reeraha oo ma yihi oo hadda takoorka wada waxaa weeye soomaalina soomaali tahay maya ayno walaal waa ku fahansanahay macnaha waa ku fahansanahay walaalkayga laakiin macnaha waxaan ka wadaa reerka aniga ahay gabooyaha kama mid tiid macnaha reeraha kale soomaalida kalea ka mid tahay okay maasha allah walaalkayga aad baad umahadsantaa kolley aniga meeshan wax xumaan uma soo gelin laakiin wixii muuqdo keliya aan taabado soo maha aniga waa dareemayaa waxa qof kasta sameyn lahaa waaye waxa qofkii dhiigi lahaa wax dareemayo xitaa anigoo reeraha ka dhalanaa taas dareenkaas way ku jiraa laakiin reeraha aniga taacay anoo iga ahayn waxa waaye reeraha ayagaas dayacay waxa weye dadkan way is aruursadaan soomaalida qabiila reeraha qabiil malahan waxa weeye ubadanyihiin waa la xitaa marmar markii naftaadii iyo xoolahaagii nasabka umaada dhiigata in loo daasho waa muhiim ma fahamtay marka reeraha waxa weeye xitaa dhuuc kasta waxa weeye waajib oo diinta idin ogasha in la sameeyaa markii nasabkaaga cirdigaaga maalkaagii saxiix waa u dhiman kartaa waa jihaad caadi صح والله xaaladda markay seeta in lala dhiilgareeyo waa ما شاء الله dadka magacaaga iyo sheeg tamaan markay gacan imaatataa waxa waaye reeraha waa inay is ما caawiyaan شاء الله dhulkay degan yihiin waa inay isku caawiyaan صح in xoog loo sheegta maaha waxa weye haddii maanta nin walaalka xoog loo sheegta beri soo socotaa marka waxa weye نعم reeraha dhinac kasta waa inay iska ما dhisaan شاء الله xagga waxbarashada xagga qabiilka taa qabiilkooda inay sheegaan oo صحيح sida dadkan qabiilada iskugu faanaan oo isku نعم raadsadaan laisku raadsado fahamti إن شاء الله إن شاء الله walaalkaygu aad waxaan soomaali kaliya ma soconaysa waxaan soomaalina idaa kuguma daynaysa صحيح marka صحيح صحيح waxa weye ilaahay dadka soo hanuuniyo intii wax fahmaysa intaan wax fahmayna noocay wax ku fahmaysa lala dhaqmaa ilaani ما واسطة walaalkaygu aad baad umahadsantaa ما شاء الله fikirkaaga iyo qalbigaaga wanaagsan waa kaaga mahad celinaya walaalkayga marka anigana waa ka sidaa wallahi sidaa u dareemaysa u dareemay reeraha kale anoo hadda dhinacaas ilaa iga dhigay oo ilis aan ku jiro laakiin wallahi saa u dareemaysa yaa u fiil garaynaysa aan u fiil garaynaya maanta mahadsanid qof walbo walaal qof walbo damiir leh waa xumaanta uu diidan yahay somaan mahadsanid walaalkaygu aad baad umahadsantaa walaalkay wallahi aad u fiil garayna marka niyo waxa weeye halis muujiyo inta kuu dhow iyo dadka masaakiinta ah oo hadda adiga hadda Yurub aad joogtaa u malaynaa meelaha joogtaa kuwa xagga jira dacaawin u baahan adiga hadda waa iska xanaaqaysaa waa harta Facebook soo fadhiisanaysaa waxa fadhiisa midaan meel uu ka hadlin oo joogo oo habeenkii hurdo la'aan hataa kuwa wax stress iyo dhiig kar iyo barashada ku dhici kara صح 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 صحيح dadka wadanka joogo dadka ma ahan adiga dadka la hadlayso ma baahno oo Facebook intay soo fadhiistaan oo hadda guriga internet ku jira ma ahan dadka loo baahan fahamti waa صح marka haddii waxaad samaynaysaa niyo waa la isku tago hal qof keliya Soomaali waxay tiraa far keliya fool ma dhaqdo marka wax samaynaysa waa the way first way waa waxa samaynaysa guri waa baraarujin laakiin midaan kuma soconayso waxa inay ku haraan loo baahan yahay dadka ka soo jeedo community inay samaystaan ay wax aruursadaan dadkooda dhibaataysan xagga tagaan nooc kasta ay gacan ka siin karaan waxbarasho صح soo weeraro oo jacal laga dhahay nooc kasta laga dhiciya Soomaaliya qofka bini'aadamka xayawaanka baalka dadka soo weeraray bini'aadamka daran صحيح baalka waa laga dhuuman karaa caawigeeda laga kori karaa صح qofka meel kasta ka soo galay nooc kasta waa in loo dhaqmo wixii diinta ku baraysan fahanto waa seetahay walaalkaygu aad baad umahadsantaa walaal fikirkaaga wanaagsan waa kaa guddoomiyey عادي عادي والله
jooga dadkan yurub jooga waa iska sheekaysanayna marka soo orani waa wada ما xunnahay عادي عادي walaalkayga mahadsanid walaal aad baad mahadsantahay mahadsanid walaalkayga ugu dambeeyey koolkaasna insha allah ninkaas walaalkayga ugu dambeeyey aad baad mahadsantihiin dhammaan soomaali maxamed inta oo idaawatay intii daawo doonto aniga bas waxaan rabaa oo keliya guurkan in is guursano keliya guurka hala joojiyo waxyaalaha kale waa laga heshii karaa laakiin guurka lagama heshii karo guurka waa lama taabtaan waa muqadis isma guursanayna aniguna waxaan qabaa ninkii reeraheena ka mid ah gabar kala damca wax walba lagu dhiga diyaara war rubadda ka jira gabadhiini soo aadana rubadda ka jira xalaal bay nii tahay ma fahanteen marka guur ma jiro soomaali maxamed dad dalkaas iyo afka soomaaliga iyo calankaas hanaga dhexeeya marka aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh